Bismillahirrahmanirrahiim. Allahumma salli ala Muhammad. Halkan waxaan doonayaa inaan ku duubo maansadii labaad oo daba socota silsiladii uu iba furay abwaanka Xasan Daahir Ismaaciil Warsame silsiladaasi Miinley. Tii hore waxay ahayd kaga qayb galay maansadii koobaad waxaana la oran jiray magaceeda Maandeeq. Tanna maanshaa alle baa la yiraahdaa. Marka micnaha waxaanu ka dhex fahmi doonaa erayada suugaanta. Marka waan bilaabayaa hadda. Marka wuxuu oranayaa murtida gabay haddaan miimka ka higaajo mahadhooyin iyo taariikh haddaan dub uga maansoodo oo aan milicsado waxaan ka soo gaadhay. Murankeenu waa kii xornimo maalin uun ku weydeene oo waa taad meel madow calankii kaga dhaqaaqdeene oo waa taad madal dharaareed gumaysiga madfac ugu garaacdeene oo waa taad kacshay qori duurka ula mushaaxdeene oo waa taad maashaa alle dalkii dub u xorayseene oo waa taad mar labaad calankii dub u maamuusteene oo waa taa caalamku wada arkee baxaya muuqiisu oo waa taa ummadina dhammaan wada mabsuudeene oo waa taa markay arkaan cadowgu marada tuuraane oo waa taa muusanowgay qabaan mariyo buur dheere oo waa taa maantaba maandeeq ninkii lahaa xoorka ku hoos maalo ee weliba nimcadana gurteeyaan laga madoobayn oo maskaxdii cadowgu qabuunyay kula macaanaanin moos lasoo fuulo iyo taakaha ahaanin muraad baynu leenahay intaan ka gaadhayno murtida abwaanow inoo yara dhigo midida soofeeya meeshii dalooshaba hore ka mooleeya oo ma hagaagto xaajadu haddaan mooro la heenseyne iibna laguma hele xornimo waa loo dhididaaye ha hilmaamina ee guntiga dhiisha ku adkeeya ma haweysanayo oo cadowgu waa habranayaa waxi huriyey mooye qalbigu waa ay halcayaaye oo meeshii aan eegaba mawjad baa furane alla magane yaa ummadan wax dareensiiya mar walba waxaan maskaxdii ka degayn ayaan arkaa maalin iyo leyle mucjiso iyo waxaan dhacayn baan moodayaa weliye meeshaba ma soo dhigan waad arkay inaad maqasho un mooyaane maangaab caqligu maranyay oo loo mashxaradayo oo mar kale lagu makaabsaday meeshii lagu gumaadayay oo maqaarna looga dhigo magac yaroo hooseeya oo milgihii uu lahaa iyo marinkii weydaartay oo midnimo ka sheekeeya ee aan aqoon micnahaasi kuba hadaaqaya matal iyo mala awaal ayay ula muuqataa aragtidaydii macallin aan aqoon lahayn baa soo makeekiyaye u macneeya haddaba midnimadu waxay too weliba dareensiiya wax lasoo maqli jiruun inay tahay meel kastaba ugu sheega manhaajkaba in laga tirtiray bal hoosu maqashiiya mar dambe inaan la helayn kun jeer kur ugu maansooda u macneeya haddana Somaliland oo mid ugu sheega u macneeya inay qaran taho lagana maagayo u macneeya inay cudud milatari leedahay cid ku soo liicaynin u macneeya inay jirid adag taho xeelad marahaynin u macneeya inay mid taho meel la wada joogto u macneeya inay maal iyo adduun meel isugu geysay u macneeya inay maantana dawlad iyo xornimo midigta ku haynayso intaasoo gabaygii ku dhan yahay markaas suugaanyahankeena waxaan leenahay bahasha iyaynaan dee Somaliland aynaan ku soo celinaynin malaa waxa qurux badan inagoo ka yara maaragtay